wafdi ballaaran oo uu iskugu jira wasiiro wasiir ku-xigeenno xubno ka mid ah xildhibaanada labada gole ayaa soo gaadhay maanta degmada Garbadadar ee ka tirsan gobolka Salal. Mas'uuliyiintan oo uu horkacayay wasiirka wasaaradda qorsheynta Somaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane ayaa waxa sidoo kale qayb ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha Saciid Axmed Jibriil iyo xubno xildhibaano ah. ujeedka safarka mas'uuliyiintan ayaa daaranaa baraarujin ku saabsan in dadka aan diiwaangelinta horey uga qayb galin isdiiwaangeliyaan iyo u kurgalidda xaaladda dadka ku nool degmooyinka ay socdaalka ku marayeen ee ka tirsan gobolka Awdal, iyagoo dhanka kalena ka dhagax dhigay degmooyinkaasi mashaariic horumarineed oo laga fulin doono deegaanadaasi. Barbilow maayirka degmada Garbadadar Jamaal Muumin Dambiil oo hadalka furay ayaa waxa uu yidhi waxay naga joogaa marti aad u culus oo ka socota dowladda Jamhuuriyadda Somaliland oo hogaaminayo wasiirka qorsheynta qaranka kulli waad garanaysaa waa Buuxane. waxa kale oo halkan jooga isna wasiir ku-xigeenka biyaha Saciid. waxa kale oo halkan jooga xildhibaanka xeebaha xildhibaan Jimcaale. waxa kale oo halkan nala jooga xildhibaan golaha guurtida oo ah isaguna Axmed Aadan Jilde. waxa kale oo halkan nala jooga wasiir hore Maxamed Ibraahim Madar. waxa kale oo halkan nala jooga Maxamed Saciid oo isna ka socda guddiga qandaraasyada. kulliba maanta waxay soo booqdeen ama u yimaadeen Garbadadar inay arkaan community-ga Garbadadar ayna isxog wareystaan ayna wada hadlaan insha Allah. kulli wasiir halkan waxa jooga waa labaantii degmada Garbadadar oo waladan oo cidna ka maqlin insha Allah. kulli waxa soo dhaweyn doonaa wasiirka dhankooda. mas'uuliyiintii halkaasi soo gaadhay oo iyaguna hadalka iska daba qaatay ayaa waxay yiraahdeen anagu maanta safar baan nahay. safarka iyagaasi kulli laba qodob isku jiray wax qabad iyo wacyigelin. wax qabadka inaan arrintu degmashi magaalada Bakeed waxa dhagax baan soo dhignay oo ahaa dariiqii Baki in la dhiso oo la soo gaarsiiyo degmadii Baki haddii la soo dhaafin karana ilaa iyo gamoosin la soo jabiyo ugu yaraan bilaadanka socodkoodii ganacsigoodii isku furmo. waxaan u soconay oo kale Garbadadar arrintii biyaha ee ka taagneed xalinteedii waa ciddii mas'uuliyadda looga dhigay sidii loo baahnaa iyo sidii mas'uuliyadda ku dhahnayd biyo balaarintii magaalada la sameeyay uma aanay qaabilin. runtii wixii tala iyo arrinna maayirku la siiyay xisaabtan baan galaynaa aan la xisaabtano cidda loogu talagalay biyaha inay hagaajiseen hagaajin. ka ugu dambeeyay wuxuu ahaa socdaal aan ku soconay ilaa iyo lug haya idana dhagax dhig ceelkii oo dumay in dib loogu hagaajiyo. taas waxay ahayd tii wax qabadkee dowladnimada iyo ogaanshaha nolosha shacbiga iyo baahiyahooda duruufahooda wixii la awoodi karay. waa sugnahoodee dal maanta la ictiraafsan yahay hantiilo ah ganacsi dhex yaallo shaqo dhex taallo adduunyada wada shaqaysan lama aha. dalada aan kale u socono waxay ahayd walaalayaal waxaan galaynaa doorashooyinkii oo soo dhawaaday. mar haddii soo dhawaadaanna waxaan u baahannahay isdiiwaangelin. dadkeenu wax ku dhacay baan garan laanahay. anagu qolo gaara uma soconno qof gaara uma soconno dowlad baan nahay waxaan leenahay un isdiiwaangeliya. anagu maanta xukuumaddii baan ka tirsannahay kaambeyn kuma jirno oo kaambeyn aan ku jirnaa oo odhanaya annaga noo codeeya way iman doontaa laakiin ma jiro maanta kaambeyn iyo olole lama wado. ololaha aan wadnaa waa kaarka qaata. ololaha aan wadnaa waa kaarka qaata. taasi waa taas. arrinta labaad ee taalla kolley haddii horumarka laga hadlay idinka dhibaatada maanta idin haysataa waa biyaha. hay-ad baa timid waxbay qabatay wixii sidii loogu talagalay umay dhammaystirin. maamulka iyo barasaabka gobolkuba dacwadda wayna soo gaarsiiyeen. hawshii gacantaan ku haynaa. anigu muddo yar baan imika idinka maqnaa iyagoo halkan yimid oo soo dhuuntay baan u imid. dabadeedna magaalada waan ka saarray waxaan ku nidhi taga Hargeyso oo haddaydaan dhammaystirayn injineerada wasaaraddaana waan ku soo daraynaa.
sidii loogu talagalay ee dadka ay ugu filaan lahaayeen biyahaasi ayaa loo fulinayaa haddii kale dee lacagtii bay soo celin doonaa nimanku meel qabyaa lagagama tegi doono taasina waa taa wixii kale ee culaysa idinka ka warrami doona abaar baa jirta runtii wacdi baa dadka haya dhibaato badan baa jirta annagu maanta waxaanu u soo baxnay warkii shalay ka habsaamee dee siduu doonaba uga habsaamo kii qaangaaray inaynu maanta garbadaba deegaankeenna la yidhaahdo intaas oo kun oo cod buu hayaa cod markaad leedahayna adaa muxaafid iyo mucaaridba adaa ka adag ujeedadayda ugu weyn waxa weeyaan war ishalloo kaarhka ha la qaato dadkeenu iyadoo halkaa yaallaan aad arkaysaa mid halkaa fadhiyaadaan sawirgala maxaa iga galay bukule maxaa iga soo galaya war wax badan baa kaa soo galaya oo markaad cod leedahay biyo hadday noqoto iskuul hadday noqoto hadday hay-ad noqoto waxaa lagu xisaabtamaa cod anugu badanaa barigaan saa tagaa tuulooyin waxaad arkaysaa garbadooda ka yaroo lagu leeyahay 15,000 baa ka codaysay inaguna maanta halkan intii ka codaysay waan isgaranaynaa inagama dad yaraa laakiin way naga ficil badan yihiin waxaaba laga yaababa inaynu inagu ka dad badan nahayba fariinta ugu muhiimsan ee moogta halkan maanta aynu ka sheeganaa waxa weeye arrinka ugu dambeeyay jirda shay waxa horta kaabayn cid u socotaa iyo olole ma jirto laakiin wixii nafaheena iyo inaga deegaankeena dadkeena u dan ah ayaanu soconaa waxa soo ah kaarka la qaadanaya hadda lagu sheegay waa ka go'aaminaya amba maxay hoosta ka xariiqaya inay halkani ay wax noqoto imaka caafimaad waxbarasho biyo haddii inta aan hayno in ka badan aan rabno waxaynu kula soo bixi karnaa inuu ku falan karnaa waxa weeye inaynu cod la soo baxno codkaas waxa uu go'aamin doonaa markaa horumarka kolba halka uu gaarsiisan yahay geestooda xubno ka mid ah cuqaasha iyo haldoorka bulshada degmada Garbadadar oo hadallo kooban ka jeediyay halkaasi ayaa waxay yiraahdeen wasalaamna horta tukoobaad waftida waxa weeye qof walba warno qofkiisa uu yimaada halbadhakii geel laga helay iyo ka xigtaa waan idinka mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadle talabaadna waan idinka mahadnaqaynaa inuu u yimiday bulshada aad matalaysiin inigaa ka soo dhawaaji baayaa biyaa hadday ahayd iyo waxbarasho hadday ahayd iyo caafimaad hadday ahaydba daaytuba dhaliila way leeyihiin wax looga tarana way u baahan yihiin kaarka waa la qaadan kaarka annagaa ku khasban dhanteedaa nagu khasbaysa waad ku mahadsantihiin diiwaangelinta waa muhiim haddaynaan isdiiwaangelin dadka la tartami mayno diiwaangelintu waa muhiim waa shayga keliya ee lagu qiimeeyo bulshada meel degan ama magaalo lagu qiimeeyo waxaan ka mahadnaqaynaa madaxweynaha dowladda Somaliland wadana musabix waxaan ku mahadnaqaynaa waxa weeye door keliya ka lagu soo maray madaxweynaha soo mara daayirayaal kaahin siiraanyo cigaal madaxweyne Garbadadar soo maro oo bal magaalada Siimir kow musabix la wada garan Soomaaliya maxay ka faa'iideysan kiisi saldhig booliis buu loo soo maanta Garbadadar laba saldhig booliis beelada laba saldhig booliis yeelada kaliya waxa ka maqan gaariga ka maqan laakiin maanta waxa la war bulshadiini waa dhimasho waxa dhimasho tahay waa ururka dadka sida uu ku soo sheekeeyay tahay waxa la bulshada loo gurmudo waxa la caafimaad loogu gurmudo waxa la ururna loogu gurmudo waxa la diinaa loogu gurmudo ومصطفى حسين عبدي مصطفى قربو